wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarisay 51,000 oo geed oo loogu talagalay in laga beero laguna cagaariyo deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal. Injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal oo ka warbixinaya dhirta ayaa ugu baaqay bulshada gobolka gaar ahaan maamulka iyo mulkiilayaasha hoteelada iyo sidoo kale cid kasta oo danaynaysa geedahani inay u soo doontaan xarunta wasaaradda ee magaalada Boorama halkaas ay diyaar ku yihiin noocyada kala duwan ee dhirtu. maanta ujeedada aan isku yeedho waxa weeye inay la wadaago warbixin taasoo ah ku saabsan qaybta nursery-ga aan u sheegayno dadweynaha ku nool gobolka Awdal aan leenahay waxaan diyaarinay oo dadweynaha yoolka ama ahdaafta aan dejinay inaanu sanadkan gaarsiino dhir capacity-ga gobolka ama inaanu gaarsiino dhammaan degmooyinka dhir xaddigeedu uu dhan yahay 51,000 oo geed kana kooban noocyada kala duwan ee dhirta sida waxaa faqrad lagu dhahay shade trees ama dhirta harka, dhirta fruitska ama khudaarta kala duwan sida cambalafka, papayga, saytuunka iyo dhirta maxay ahaydeen flowers kala duwan iyo dhirta harka oo runtii ah isugu jirta dhirta ama harka noqota ee magaalada lagu beeriyay ah iyo kale oo ah runta dhirteena indigenous plants-ka faqrad lagu dhahay ama dhirta si dabaqaysa wadankeena ka baxda sida daloolka maraaga quraca noocyada kala duwan goobkii dhirta noocaas oo kala oo lagu talagalay dhulka nabad guurka ku dhacay ee miyiga runtii isku geyn dhirtaan la sheegay waxna ku nool gobolka Awdal in wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada gobolka Awdal ay diyaarisay haddaad leedahay maxay beer tubiyood iyo tuqalaba haddaad leedahay gobolka ku diyaar tahay in aad timaadaan xarunta wasaaradda gobolka horeynay dhir fara badan oo degmooyinka gaarsiinay alxayr iyo bulshada ka mid yihiin iyo degmada Baki in haddii la helo landscape magaaladeena iyo cagaarinta guryaha qaarka loo leeyahay gobolka ay haddii ruux alla wax u baataa diyaarka ka faa'iideysataan aadna soo doonataan ilaa 21,000 oo geed ayaa maxaa hayday yaa baxay intii faro dhanna way taalaa marka waxaan rajaynaynaa si ay u noqdaan mid isbeddelka cimilada iyo bilicda magaalooyinka cagaarinta ka qayb qaadata wasaaraddu waxay diyaar ku tahay gacmo furan isku soo dhaweynaysaa haddaad مسؤول تهاي إياها هذا تهاي مواطن كستو Somaliland خاصة قبل كأول إن أد محل هذي وزارة كسو حرانتان إن أد محل دلاشان إن أد كلا قيب قال نقرأ قيب قالتان بيرد أقدر تهدي لهاي لحظة أو بالأرك دونه مستقبل قدام به بورما قول كسي قول يجيده هدي لهاي لحظة إذا هدف كيو واسطة هدي لهاي لحظة مية مقالنا درت النور والبوية